مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. sida aan la soconno ama aynu ognahay maanta dadka adduunka ku nool waxay kor u dhaafayaan 7 bilyan oo qof. haddaba 7daas bilyan oo qof waxaa jira astaamo badan oo ay ka siman yihiin oo uu ilaahay u abuuray sida 2 indhood, 2 gacmood iyo 2 lugood. haddaba maanta halkan waxaan idinku soo gudbinaynaa dad leh astaamo u gaar ah ama ilaahay u khaas yeelay iyaga oo ay adduunka kale ka duwan yihiin. ninka u horeeya ee aynu maanta muuqaalkeena ku soo qaadanayno waa Gary Turner. dadkuna waxay u yaqaaniin magacyo kala duwan sida Elastic Man. ninkan waxa uu kala bixin karaa jirkiisa ama marba dhiig u jiidi karaa isaga oo aan dareemeyn wax xanuun ah, waxaana uu buugga iskoorka galay 1999 ilaa iyo haddeerna lama hayo wax maqaar noocan oo kale ah leh. Vandana Sutar. ninkan waa nin ka duwan bani'aadamka kale sababta oo ah badanaa dadku waxay leeyihiin 20 farood marka la isku daro faraha addimada iyo faraha gacmaha, laakiin ninkan waxa cajiibka ah ee uu leeyahay ayaa waxay tahay 28 farood, taasi oo ah midda ka dhigtay inuu ka mid noqdo dadka adduunka dhif iyo naadirka ku ah. Jyoti Kisanji waxay gashay buugga iskoorka 2015 iyada oo ku gashay haweeneyda ugu gaaban adduunka. waxay ka soo jeedaa waddanka India. markii ay jirtay 5 sano, dhakhaatiirta ayaa waxay sheegeen in ay qabto xanuunka dwarfism-ka, kaasi oo ah mid dhif ku ah adduunka, sababana in qofka lafihiisa ama qaar ka mid ah ay kori waayaan ama uu ka dhici waayo wax korniin ah. intaas ayuu maanta muuqaalkeenu ku eg yahay. fadlan haddaad ka heshay muuqaalkan like saar. wassalaamu calaykum. مولاي صل وسلم دائما